sheekeynayna Champions League ciyaarihii Champions League oo dhamaaday ayaanu falaqayn doonaa waxa ciyaaray Liverpool City Barcelona Roma Real iyo Juventus oo Real ay badisay goal la siiyay rigooro laga dhigay Juventus oo aad iyo aad Buffon uga qaraaday marka aanu gada galno Liban waxa aad nooga bilowdaa ciyaartii Liverpool iyo Manchester City laba goor bay isla ciyaareen home and away waxa lagu bilaabay garoonka Liverpool Anfield game-ka goor sidoo saddex eber ku dhamaatay maxaad iyadoo ay City laga filayay in ay badiso oo aan City sanadkan saddex ciyaarood meel laga badiyay laba ciyaar saddex ciyaar sanadkoo dhanba Premier League way qaatayba oo the team soo dhawaan karay ma jirin sanadkan Champions League saddexda sidee bay ugu dhufataa Liverpool ciyaartii ugu horeysay maxaa isbedelay ciyaartooda maxaa iska bedelay ninkii Pep uu bedelay shaxda ku ciyaarayay muxuu keenay difaac wuxuu lahaa xoogay ka difaac marka midfield uu lahaa qabso marka waxaan madaa inuu game plan inuu ka yara bedelay oo filaay inay Liverpool ku soo careyso filaay marka si dhexda qabso yahay si qabso ciyaarta yara maxay ahayd maamulada controlka game-ka urban haysto marka dhexda uu ku maamulay ku qabso marka sabab uu ciyaar dhexda Gundogan buu keenay waxa joogay Silva joogay De Bruyne joogay way badnaa marka Sterling buu fadhiisiyay Gundogan buu ciyaarsiiyay oo midfield-ka controlka laakiin kuma soo bixin Gundogan ciyaartaas waxa in ku bilaabo Sterling buu ku bilaabo oo labada dhinac bay isticmaalaan weerarka inuu ku dadaalo wada markii game-kii labaad uu bedelo ku bilaabo maxay Sterling ku bilaabo maxaad Liverpool inta adayga ay waday inta leeg muxuu saddexda gool hadda ugu horeeyay ku dhaliyaan ba 35 min baa ugu dhaliyay saddexda aad laakiin waxaad ka filaysaa meesha Salah uu joogo gool u dhalinaya waliba dib kama taagna in Liverpool inay gool dhalisay qof kasta soo yahay Liverpool gool dhalisay way haysaa weerar fiican way taas waa la isku ogaa laakiin waxa la filayay inay City na gool dhaliso laakiin difaaci Liverpool oo sanadka oo dhan xuma oo la ayaa hadda City ciyaarihii ugu muhiimsanaa ayuu haddana admaday difaaci ugu fiicnaa u noqdayba Kieran Alexander-Arnold iyo Sane soo casaraha si fiican buu haysanaa Sane marna muu soo dhaafin laakiin kooxda dhan baa difaacaysa qayb toban nin oo mid kasta difaac ku jira Ibrahim Mohamed Salah kooxda dhan si fiican u difaacay marka ciyaartii ugu horreysay ku dhamaatay 3 ever waa la yaabay waxa la maxaa dhacay laakiin City hadii ay weyn gool heli lahayd game kale aan lahayd isbedel lahaa game-kii labaadna soo dhacay game-kii labaad City ninkii Pep waati shacada u bedelay waxay difaaciye midfield intuu iska daayay waxay baa weerarayna maanta marka weerar buu galay marka 2 minute buu gool ku dhaliyay goolkan maxaa marka goolku wuxuu ku yimi Van Dijk oo mara miya lagu yara istaago kaasuu mooday inuu iska calacalay kubadii uu joojiyay ciyaar intaa leeg oo difaac tahay ninka ugu dambeeyay tahay kubadda haysta ama lagu istaago ma lagu tahay lagu gooyo marka ugu horeysa waa inaad ciyaarta kubadda fogeysaa ma inaad calacashid waa lagu istaagay ma waa iska rakibray oo islaha waa lagu dhigay laakiin gool bay gaarsiiyeen waxay rabeen 2 minute gudaheed markaas waxay islahaayeen game-ku hadda bilaabanaysa waa City at least goal goal dhalinaysa marka shaxdeey ku ciyaarayay game-ka labaad sidee u ciyaarayay Pep muxuu ka bedel ciyaartiisii Sterling soo galiyay dhinaca kale ciyaartoyguna way isbedbedelayaan Silva iyo De Bruyne waxay ka ciyaarayaan Silva iyo
sanana waxay ka ciyaarayaan left wing marka left wing ninkii Arnold game ka hor si fiican u dhalay laakiin game kan laba nin baa lagu dhaafay laba isku tageen laakiin haddana may dhaafin ها لكن دبوا كان سيدي جيم كور ما هين جيم كور سيف عم بوها لكن جيم كلا بعد دور تشيلسي بقدال بوكا يرجع ما كسته هل نلبن ما هين كلا ده يا رجل ان يدو اي صارت هاي ciyaartii way socotay waxa la gaaray goolkii labaad ee laga diiday City ku dhacay offside la siiyay Milner ku dhacay Milner ha exactly Milner ku dhacay saarna uu sii daliyay offside muu hayn Soomaa waa taa ma taa soo raacay offside ma Milner baa ay ku dhacday offside ma noqon karto sina macaawin lahayd hadda Champions League hadii ay technology-gan VAR kala dhahdo sirwaluhu ka daawan karo videoga situation ama xaalad soo dhacday oo ku noqon karo macaawin lahayd oo Champions League hadda ma malanaysa inay keen doonaan sanadka dambe وكينيا صدق ده ما لكن فيوتشر كول جيم دونا لكن حتى ولبا مقدور اف اي كاب كله اسكو دايسو معها مرمر لكن هو يرجع يا مرمر وقت دير بقى تاع جيم كودن بقربته لكن هدي ما هي لكنه waxa laga yaabaa inay qaladaas dhacayaan marka in goolkaas waa laga diiday ciyaartu isbedel lahayd haduu goolka loo yeeli lahaa of course oo hadii la tagi lahaa markii break hadii la gali lahaa laba eber of course isbedel هذا يسبدل العيارته نعم بيبنا كور لما فديسن لهاي بيب horta ma lu caay sama si lu caay waa laga saambu ha saambu laakiin markii wax lagu yiri kor fadhiisan ma game kiina markay soo laabtay waad ka dareemaysay inay jab ku ahayd ku neecheen sama neecheen ha bibna markuu meesha ka baqnaa ay maqli waayeen qiladii bibta iyaguna ma wax laga yaabay inay like what team win ina qilada markuu halka ay marayso ciyaarta inay wax badis bedelaan ha inay ku hadii ku sii wadi lahaayeen ma ahayd laakiin xoogay bay jabeen ma dareentay game way daaleen daal baa horta ka muuqday waxaan u maleynayaa horta sanadkan City waxay ciyaartay ciyaaro badan sida Liverpool ba laakiin daal baa ka muuqday oo horta ninkan rotation badan ma bedelo ciyaar kooxdan ka soo inta badan ku ciyaara marbu Bernardo Silva bedela laakiin markuu qof ka jawaayo keena inta kale oo dhan laakiin sanadkoo dhan wuxuu ku ciyaaray intaas kooxdan ka ku ciyaaray mid buu mar bedelaa marka ciyaaro badan bay soo ciyaareen oo Liverpoolna inkastoo iyadoo la soo ciyaartay laakiin haddana City aad baa daal sayda uga muuqday waxa kale oo jirta kooxda ninka laacibka ugu weyn haduu maalinta si fiican u dhaalada kooxda way soo baxaysaa marka waxa isku haystay sanadkan oo dhan yaa qaada laacibka sanadka De Bruyne amba Mohamed Salah marka labada ciyaaroodha Mohamed Salah iyo De Bruyne waa horta waa laacib dhaxda oo aad iyo aad u fiican laakiin ciyaartan Liverpool game blank sida ciyaarto Liverpool ayaa way aad bay u fadhiistaan soo ku soo carartaa aad bay laakiin pressure inuu ka muuqday sidii hore sidii uu dheeli jiray Firiga ha uu dheeli waxaan mataan pressure ka maxad ka yaabaan laakiin ninka maxaan Salah ka war Mohamed Salah the Egyptian king si fiican ayuu ciyaaray labada ciyaaroodba labadii gool ciyaartu ka soo golashiisa keenay isaga baasay isaga dhaliyay tan dambana isaga dhaliyay way ka muuqato weera jabnaa injury ba uu jabnaa laakiin halkii chance uu helo dhaliyay waxaan u guda galaynaa ciyaartii kale ee Roma iyo Barcelona maxaa u dhacay wama adraka Barcelona والله سفيع عود شيء جيم كي هرا كان جرى يدنا صدق بدي سما أفر هل أيا لقولها أفر هل ها إيه روما أتلتيكو مدريد ورتي لابد يكون هذا واضح حتى إسبانيا أتلتيكو مدريد لكن برشلونة إن أي ردو لما في لين دي نقول مركي أنك هذا إن بريفيو جانا وحنا روما كمان هذا وايد wax chance ay lahayd ma jirto qof ka sugayay inay badiyaan muu jirin laakiin waan yaabay waa ciyaartii waan daawanayay gool bay dhaliyeen Checo ayaa ninkaas ayaa
Umtiti iyo PK naftu u keena marna uu ka carra mar uu xooga mar uu jeeda goolkiina uu ka dhaliyo goolna uu baasay ninkani midfield-kana way soo dhaafeen Barcelona waxa ka muuqatay Messi hadaan si fiican u ciyaaray tiimku si fiican u ciyaaro hadda Barcelona hore ma ahayd oo tiimku wax badan baa iska bedelay waxaan u maleynayaa horta saameynta ugu weyn ee ku yimid waxa weeye dhexdii oo ka sii raxmaanaysa Iniesta si gaboobaya Coutinho aan Champions League ciyaari karin maadaama uu ciyaaray Liverpool marka dhex fiican bay u baahan yihiin Messi-na gamekii labaad lama arkin Messi gabigiisaba chance ku markii ugu dambeysay ayuu helay laakiin uu gadal waan marka horta Barcelona waa la riday Roma riday laakiin xaqaasan waxaan ka warkeena away goal ku muhiim yahay away goal inaad hesho halka gool butim ciyaartuba halka gool ee kaga soo dhaliyeen Barcelona ay ciyaartuba ku dhisnay horta Champions League away goal ku waxa crucial waa halka gool bay ka soo dhalisay markii dambana gurigooda ku jihaaday marka saddexdii gool baa ka soo ceshatay ciyaartiisa ku dhamaatay Barcelona bye way noqotay dad badan baa ooyayay Soomaali badan oo ooyayay waan arkayay Facebook-ii habeenka aad iyo aad buu shidnaa waan ka xunaa haddana waxaan u gudagalaynaa ciyaartii Juventus iyo Real Madrid Juventus oo aakhir loo dhaadhiciyay oo la aasay oo soo noqotay maxaa gurigooda ayaa 3 ever laga soo bediyay maxaa isbedelay sida u ciyaarayay horta waxa ka muuqatay firfircoon waxa ka muuqatay geesinimo maxaa isbedelay tani marka 3 laga soo dhaliyo freely wada ciyaaraysa in blank loo bedelano markii hore waxa islahaayeen sidii Talyaanka u ciyaaro difaaca oo waxba yaan idin ka dhalay laga tan game-ka ay furfureen 3 gool bedeliya oo ciyaarta markaan daawanayo waxaan arkay markii ugu horreysay horta ninka Kayre Dybala ay teamka ku dhisaan sax oo isaga ay Dybala mooyay hadii cidaba noolaato bay dhahdo sax Dybala halo baaso Dybala isaga kubadda kala wado marka wuxuu ka khalkhalayaa marka teamka sidoo ciyaartooyo badan oo fiican ayaan teamka ka ciyaari kara soo gali karin sax marka isaga ku dhisaan ciyaartooygu soo kicsan ka qaatay marka waxay taasi keentay inuu soo geliyo ciyaartooyo kala duwan wuxuu keenay Matuidi dhexda iyo ninkii Mandzukic oo labada gool soo dhaliyay Mandzukic labada oo de inta badan benchka ka ciyaara la fadhiisiyo maadaama uu maqnaa marka Dybala isaga chances isaga iyo Matuidi oo box to box on array game code weeraray kooxda soo kacday si fiican u dheelan 3 gool oo maxaa bay ka dhaliyeen laakiin markii dambe penalty loo dhigay Real maati la dhigay penalty ma kula haydeen weelahayd ani way laakiin penalty laakiin ninkii Buffon soo muxuu lahaa sabab de horta Buffon markii ugu horeysay markii la dhigayay rigooraha markii la dhigayay Buffon khalad buu sameeyay Buffon markii inuu ku soo baxay sax markii weerarkii Real Madrid ku qabsaday markuu qabsaday kubadda inuu waxba kama fogeen ba inuu ku soo cararay haydo kubadda ku qabsado marka qasab ayay ku noqotay difaaca inuu wax sameeyo marka de inuu ka dambeeyay lugtu dhinaca kale kaga soo riday uu jeeday uu riday khalad bay ahayd waxay khalad caadi ahayd oo laga hadda Buffon haduu nacsan qaadan lahayn isaga ayaa wax laga yaabo qabto nacsan qaad markii loo baahnaa دورته حويس ما يبدل لهنا هذا أما قاطع هذا جول هذا دلينا وهذا دلينا هنا سيدو دليل بقى رونالدو ولو كريتيك له عشان كوس بدل هاي ما يشرن لكن واحد كنت عيارته واحد كنت سيسي ريال مدريد صنعت كان إن
aad iyo aad u liidatay ها واحد inkastoo ay Champions League haddana سيف عم بقول لنا si fiican ciyaaraan soo kacaan سوق عن maxaa sababay horta Real Madrid sanadka inay aad u liidatay تنو سنة كرتو واحد من تايني سترايكر كودي إنه واحد ليتان وحو بعنا إنه يصير بسدان سترايكر عصوبة وده قف دحدة قف قبصة واحدة إلى حتى رونالدو بنسمع بيل حاجة أنت كده تعال إنك صار رونالدو ده تشامبيونز ليج جيم كسر واحد اليوم game kasta waa dhalinaya isagu beel buu keenay oo hadana markiiba bedelay beel oo khasaara oo ku khasaaray حاجة ها laakiin markii aad saddex gool markaad soo dhaliso oo aad gurigaaga ku ciyaarayso in sida yar fudud goolasha lagaga dhaliyo maaha ما يدفع ها Juventus aad iyo aad bay سيف عم بقول لي يوفنتوس إنك صار صباحين لكن حتى بفون سو مقطع سنة تبدو شو ma ka dhamaatay Buffon كلام ciyaarihiisii ugu dambeeyay uu sii ciyaarayaa wax saaw badan oo hayaa ma jiro anymore waa dhamaatay isaga horta halkaas ayay ku dhacday Juventus oo lagu riday Real Madrid waa soo baxday ciyaarta ku xigta waxay ahayd ciyaarayna Bayern iyo Sevilla oo riday Manchester United oo aanu ka soo hadalnay gurigoodii wax lagaga soo badiyay 2-1 ها Allianz Arena ugu yimaadeen waxay ahayd ciyaar qashin ah horta absolutely قشة absolutely يارتي جوه الرسافين يارتي جوه الرسافين عم يسوي له وداش Bayern si uu ciyaarayso sanadkan kama helano ما حد ما تاني سكيرا liigooda horta hal team bay la tartantaa تيجي كان على كتار أصلا Dortmund bay la tartantaa inta kale dhan waa iska wada xaawo ها ciyaartooy badnaa way ka jabnaan haddana way soo noqdeen horta way iyagu wax daal ay kama muuqan كمان مقنع samar barafkana way nastaan waxa soo baxay Real Madrid Liverpool Bayern iyo Roma haddii aad Real Madrid tahay ama Bayern tahay yaa travel lahayd in ay isku soo beegmataan semi-finalka روما still إنك صبر ساكب بديان أنا still إنك واحد يلا معك صد أفر جوال لقيت اللي يقول ها أنا حاول لكن ليفربول actually واحد لقيها بين بديان